السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن قداونيسين واجعل اوفيشال صومالي هنولاتو علنك جو ايه هلكا فرماجو قدوكو بحي مقالة مقدشو لا سوى شوع صومالي هنولاتو بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت ومالين وين وعيد وحن ليه همباليو ميل والبا أي صومالي جوكتو وحن ليه همباليو إن قولها وزير هذا تلياشا عيد ماذا يسرياشا قدوميها قبلك حالوذينا ذا قبلك كوح ذا هولده وابري هالجن iyo kooxda asluubta bahda saxaafadda bambayda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. allah mahad iska leh allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno 60 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay koonfur xornimadeeda ka qaadatay gumaysiga Talyaaniga ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska. waxaa la soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda. dad badan baa ku dhintay, dad badan xoolahoodii ku waayeen, dad badan xabsi ay u galeen, dad badan waa u dhibtoodeen. intii dhimatay aan u duceyno ilaahay inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. inta nool sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka waxaan leeyahay ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan shalay ka qayb galay inaan daah furno ama aan xariga ka jarno isbartiibadii Muqdisho Stadium oo muddo xirnayd oo ahayd goob dagaal ahayd. xaqiiqatan goobtaas waxaan bilownay in ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan ay ku cayaaraan markii aan nimid oo nala doortay 2017. waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan inkastoo ciidamada amisom meesha fadhiyey ay ka waardiyenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada ay dhiig iyo nafba u hureen. waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in ay raadiyaan goob kale oo difaac, laakiin meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna cayaari lahaa kubadda cagta iyo Olombigaba. ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ku booqday sanad iyo barka bacdi aana uga mahad celiyey amisom ciidamada amisom ka guuritaankoodii ay ka guurayeen goobtaas oo aad kulli masawirradooda aragteen. qaar badanna laga yaabo inay tageen meesha oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taalla meeshaas marnaba aan loo riyoonayn inay ahayd goob cayaar inaysan ahayn. waa mahadsantihiin runtii waxay igu reebtay emotional urxumay igu reebtay. meeshaasi anigu waa aqaanay markii la furaayeen xaadir ayaan ahaa sida u ekayd iyo sida ay u ekaatay. sida u ekaatay waxaa meeshaas gaarsiiyey inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay
macnaheedu waxa weeye inaan baranay waxa qabiilku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladu waxa weeye gurigaaga dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay laba isbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama groupka isxilqaan 10 bari iyo 15 bari gudaheeda waa geed qaadeen waana nadiifiyeen waxaan bilawnay inaan isku tashanno bacdama aan weydiisanay dawlado inay noo dhisaan isbartiibada iyo tiyaatarkan dawlad walbana ay leedahay haddii aan dhisno dhaqaale gelino ama dumisaan marka ma waxaan sugeynaa ilaa xabadda ugu dambaysa ay ka joogsato Soomaaliya ma sugeynaa inaan dalkeena dhisano waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashanno gacmaheena aan ku dhisano wixii aan shalay duminay ilaahayna waa nagu guulay markii aan bilawnay inaan dhulkiisino oo foolxumadii ugu darnayd aan ka qaadna meesha waxaa ka soo jawaabay European Unionka iyo Norwegianka yaa ka soo jawaabay oo yiri gacan yaan ku siinayna hadda dhaqaaqdeen waxa la fiilayay inaan fiirsanayno oo ayna dhaqaaqeenin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ee yiraahdaan waa dhaqaaqi kartaan hadda waa mahadsan yihiin waa u mahad celinay ciidamadii meesha joogeen waa u mahad celinay ciddii dhaqaale ku darsatay oo gacanna siisane Norwegianka iyo European Unionkana waa u mahad celinay laakiin waxaan u mahad celinayaa annaga isu mahad celinayna idinkaan idin mahad celinayaa isxilqaan dadkii isu diray yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa xukuumadda yaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa gobolka Banaadir Allah u naxariisto markaas waxa hogaaminayay injineer Cabdiraxmaan Yariisow ilaahay jannadiisii in naxariistiisa ilaahay ha siiyo waxa anagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada waxaan u mahad celinayaa guddiga iyo gudoomiyaha qaran ee xuska 60 guurada wasiir Maareeye oo u xil saarnaa inuu 60 guuradan ka dhigo 60 guuro ka duwan sanad guurooyinkii la soo dhaafay ka duwan waxaan bilawnay ka hadalkeeda markii 59 guuradii ay noo dhamaatay oo aan xaflad u sameeyay mahad celina iyo abaalmarina yaan hore ka magacawnay si aan isugu diyaarinno muddo hal sano ah in sanad guuradan ay noqoto mid dalka oo dhan aan ku dhisno oo annagoo ilaahayna ku tashanayna annagana isku tashanayna waxaa qayb weyn ka ah wax walba aan sameeyno waxaa qayb weyn ka ah gobolka Banaadir oo la'aanteed aan waxba la qaban karin haddii la isku dayana meel fog aan la gaari karin Allah u naxariisto Cabdiraxmaan Yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa tiisi u timid ay cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen ku dileen isaga iyo howlwadeena kala gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabeeno gudoomiye cusub aan ka magacaabeeno halkaasi waxaana galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarinno goobo badan oo dawladdu leedahay iyo goobo badan oo dadku wada leeyihiin ay jidadku ugu horeeyaan inaan dhisano gacanteena aan ku dhisano oo shacabkeena aan dhaqaale ka arurino oo ganacsatadeena aan dhaqaale ka arurino oo annagu aan isku tashanno hakadkiina galay waxaa noogu soo xigay gudoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo COVID-19 oo adduunka oo dhan kala xiray
taasna waan curyaamis runtii waxa hadda aan qabanay waxa ahayd wax aan ka gaarsiinayno mooyee wixii aan ku talagalnay iyo qorshaheenii meel u dhow ma gaarin waxaana qayb ka ah saan sheegay cudurkii safmareenka ahaa oo adduunka oo dhan kala xiray iyo geeridii ku timid iyo maxaan ku raahdaa gudoomiyihii cusbaa oo intuu shaqada ka baranayay laakiin hadda waqti waa haysanaa waa aragnay waxa anagu gacmaheenan ku qabsan karno waxa anagu gacmaheenan ku dhisan karno waa aragnay tijaabo nagu filan waa haysanaa wixii hadda ka dambeeya waa inaan isku tashanno waxaa la yiraahdaa sacabo biya sacabadaada looga dhargaaye annagu aan isku tashanno gacmaheenan wax ku qabsanno waxaa intaas dheer munaasabad siyaasadeed maaha munaasabad midnimo way munaasabad wada jir weeye waa mahadsantihiin waxaan rabaa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen guddigu inuu ahaa wacyigelinta dadka ka hadalka taariikhda gobonimada loo soo maray dadkii taariikhda magaca ku lahaa in wasaaraddu ay isu xilsaartay inay wacyigelin ballaaran ay samayso waana ku mahadsan yihiin hay-adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeyo guud ka yahay Bashiir Goobo isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Bashiir kaalinta aad ka qaadatay waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka dhismaha isxilqaan iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan niraahno Bashiir awa Bashiir wuxuu Bashiir dib u soo kiciyay warshad meel noo taalay oo muddo hore xirmatay oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay oo ay nasiiyeen ama ay nagu taakuleeyeen dawladda saaxiibaha nahay Turkiga warshadaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluqa inuu dib u kiciyay uu u raadiyay kuwii iyagu warshadaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyay inuu dib u raadiyay oo haddana ay tahay functionid ay shaqaynayso waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhisi doonana ay tahay warshadaas waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan waa arkaynay inay yihiin xubin muhiim ah oo aan laga maarmin iyaguna annagoonan culays saarin iyo isxilqaameen oo isu tageen oo shirar qabteen oo ay dadaal sameeyeen wax alla wixii karaankoodana ay ku caawiyeen isxilqaan oo qayb ay ka tahay tiyaatarkan madxafka maktabadda insha Allah waxaan filaynaa inay ka sameeyaan maxaa la yiraahdaa kaalmo ka galaan waxyaabaha dambe oo aan qabanayno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo oo mar walbaba la yiraahdo xildhibaanadii shaqeynayay oo ayaan dhaweyd aan ognahay golaha shacabka iyo gudoonkooda oo ka jawaabay dareenka dadweynaha shacabka ah ee degan magaaladan iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed maqaamkeen orane matalaada xamar oo muddo dheer sugaysay inay runtii kaalintooda ay qaateen oo ay ka jawaabeen iyo waliba codsigeegii oo aan ka codsaday inay igu sharfaan in aysan iloobin magaaladan oo ah caasimadeenna magaalo aan jecelnahay oo ummadoo dhan ay wada leeyihiin oo muraayad u ah in ay u garteen matalaad ana sugan insha Allah sidii lagu dhaqan gelin lahaa matalaadaas aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa golaha shacabka iyo gudoonkooda
waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo waa ciid kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay inay u ciidaan ciidan iyo xornimadaani maxay ku timid yaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo xornimadaani kuma imaanin sahal xornimadaani waxay ku timid dad badan oo naftooda hurayaal ah inay u hureen naftoodii dad badan inay dhiig u daadiyeen dad badan inay dhaqaalo ay ku bixiyeen dad badan inay u dhibtoodeen 13 ka dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan ama waliba ka horeeya dadka hadda nool waliba SYL yaan dhihin kaligoode SNL iyaga naftigooda oo gobolada waqooyi ahaa waxay lahaayeen hadaf ayay lahaayeen gumaysigu hadaf ayuu lahaa hadafkaasi kaliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbedel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan mustaqbalka wanaagsan ee ummaddaas ay helaysana waa annagana mustaqbal fiican ayaan helnay markii ay naftoodii u hibeeyeen dhiigoodii u daadiyeen waxay arkayeen markaasi oo hadafkoodu ahaa in wax ka duwan waxa gumaysigu rabay gumaysigu wuxuu ka shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed inuu kala qaybiyo si uu xukumo ummadda Soomaaliyeed waa la yaqaanaa cidii rabta inay dhibaatayso waxa lagu kala qaybiyaa ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad yaa lagu qaybiyaa isticmaalkana waa isticmaalay muddo dheerna waa u shaqaysay haddaba gobonnimadoonkii SYL iyo SNL iyaga naftigooda waxay fahamsanaayeen inay keenaan xirfad ama aqli ka duwan kaas haddii ay rabaan ummadda inay xoreeyaan oo mustaqbal caruurtooda iyo caruurtay sii dhalaan ay uga tagaan iyaguna waxay keeneen waxa la yiraahdo wadaniyad ummadda Soomaaliyeed in la baro waxa ka dhaxeeya in la baro in ay jeclaadaan dalkooda inay iyagu isjeclaadaan haddii ay doonayaan inay gumaysi la dagaalamaan ama ka saaraan iyo haddii ay doonayaan inay caalamka intiisa kale la tartamaan waxay ay keeneen oo kale midnimo oo iyadana ka soo horjeeda qabiil iyo qabyaalad maxay la qabiilku qabyaaladda waa ka hadalnaa mar walba waa wax kala qaybis iyo dhibaato laakiin midnimadu waa isjecel wada jir isu dhawaash ismaqal wada tashi weey waa ku guuleysteen inay wacyiga dadka ay kor u qaadaan ay tusaan Soomaali in waxa kaliya ay ku midoobi karaan inay tahay xorriyad doon inay ahaato haddaba isbedel doonkoodu ma ahayn isbedel doon jaga lagu raadinayay ama darajo lagu raadinayay oo iyagu ay naftooda wax ku raadsanayeen ma ahayn isbedel doonka dhabta ah waa kan ka weyn qofka shakhsiga ah haddaba waxay keentay dawladnimo iyo noo keentay oo Afrika aan uga horreyn aan waddamadii ugu horreeyaan ahayn iyo noo keentay waxay noo keentay sharaf iyo cizi ayay noo keentay waxayna ahaayeen dad aqoontoodu aysan aad u sii fogeyn laakiin niyad fiican iyo vision lahaa arkayay 60 sano ka bacdi arkayay waatana hadda aan joogno inkastoo wax badan ay naga halaabeen laakiin dadkii waa nool yahay wali waana isku cabiri karnaa wixii iyagu ay sameeyeen oo ay noo keentay 17 sano kadib xorriyadaas aan ku caana maalnay muddo 30 sano ah iyo wixii ka dambeeyay in aan isbarbar dhigno haddaba marka ilaahay aqluna siiyay inaan qaadano wax noo wanaagsan haddaan ka hadlayno qaran haddaan ka hadlayno inaan la tartanno caalamka haddii dhexdeena aan tartamayno reer hebel iyo reer hebel ay tahay xaajadu waa sax meeshaasaan joogaynaa marba meel aan duminno marba meel aan dhibaato ka samayno dadku has dhameeyaan haslaayaan waa markii ay tahay reer iyo reer markay tartamayaan laakiin marka qaran uu la tartamayo
kulama tartami karno qabiil kulama tartami karno waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale caalamka kuwa dhibaataysanna aan u caawin karnaa annaguna aan soo caawin karnaa oo aan uga bixi karnaa gudnimada aan ku jirno oo ah Soomaaliya wax hala taro Soomaaliya waa dhibaataysan tahay Soomaaliya dagaal yaa ka jira sokeeye waxaan uga bixi karnaa waxay tahay annagoo qaadana formalihii ay keeneen aabayaasheen SYL iyo SNL ay keeneen inaan qaadano oo ahaa inaan ka shaqeyno wadaniyad iyo inaan ka shaqeyno midnimo waxa u dhaxeeya malaha waxay fahamsanaayeen waxa la yiraahdo dimuqraadiyad yay fahamsanaayeen dimuqraadiyadu marka waxa weeye waxa wanaagsan way dimuqraadiyadu macnaha qof xoog ku xukumaaya ma aha ciidan isu adeegsanaya ma aha waxa weeye dimuqraadiyada fakar ka fiican in la keeno iyo waxqabad ka wanaagsan in la keeno oo lagu tartamo annagoo mid ah annagoo midaysan iyo annagoo wadaniyiin ah fakarkaasi inuu ku dhamaado fakar waxqabad oo ummaddu aan ku horumarinayno caalamkana aan magac uga yeelanayno iyo sumcad markaasi waxa weeye tartankaasi yaa waxa ka soo baxaya dawlad wanaagsan waxa weeye dimuqraadiyadu in shacabka xoogga lagu celiyo awoodii lagu celiyo oo iyagu ay kala gartaan wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn aanan lagu khasbin haddii shacabku ay doortaan qabiil oo ay arkaan qabiil inuu wanaagsan yahay 30 sano dib ugu noqonaynaa ogaada haddii arkaan shacabku in wadaniyadu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay SYL tilmaanteedan qaadanaynaayo ogaada waa labadaas waxaan kala dooranayno laakiin marna yaan la oranin shacabku wacyigoodu ma sareeyaan la oranin wacyiga shacabku waa sareeyaa anaa og shacabkeenu waa dad aad iyo aad u caqli badan aan la khayaami karin oo kala garan kara waxa wanaagsan iyo waxa xun mar qabiil waa la soo dhex gashadaa caadifadu waa iska jirtaa laakiin markay runta tahay shacabkeenu waa dad caqli badan oo garaadkoodu fiican yahay kala garan kara wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn saas darteed shacabka inaan dib awood ugu soo celino aan ku aamino iyagu inay cod ka bixiyaan haddii ay dib noo celinayaan iyagu ay qaataan eedeeda haddii hore loo soconayana iyagu ay qaataan amaanteeda waxay fahamsanaayeen SYL waxay fahamsanaayeen in dawladda loo qaybiyo 3 qaybood qayb sharci dejin ah legislative la yiraahdo qayb xukun ah oo executive la yiraahdo iyo qayb maxkamad ah oo judiciary la yiraahdo waa waxa dastuurkeennii 60-keenii noogu yaalay 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance gareynaya oo midna aysan sheegin karin awood dheeraad ah aysan sheegin karin waana sida adduunka dimuqraadiyada ay ku dhisan tahay SYL iyo SNL intaasay ogaayeen dhalinyaradii gobnadoonka ahaa waxay ogaayeen xoog inaanan waxba lagu xukumi karin ee lagu xukumo sharcigu inuu sareeyo haddaba annagu maxaa ay tahay inaan ka baranno marka weliba dawladdan hadda joogta maxay ka baratay ogaada annagu waxaan ku nimid isbedel doon yaan ku nimid isbedel doonka la sheega ma ahee waa isbedel doon dhab ah yaan ku nimid oo aan niri xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa inta yar aan joogno annagoo ka baranayna wax SYL annaga tilmaan SYL baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduun kale ka baranayno waa waxaan indhaheenna ku aragnay weeye waa awooyaasheen waa aabbayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annaguna inay noo shaqaynayso oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu sareeyo
inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah waxa weeye waxa laga rabo shacabka weeye waxyaabaha shacabka laga rabo mas'uuliyadda ay leeyihiin shacabku waxay tahay inay shacabku ilaaliyaan sharciga inay ilaaliyaan iyo nidaamka ay ilaaliyaan iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan oo qof walba meesha uu joogo uu askari ka yahay oo aadan sugin booliis iyo military ciidanka xoogga iyo isluubta iyo nabad sugiddu inay nabad ku keenaan oo adigu nabadda naftigaaga aad qayb ka tahay oo sharciga qayb aad ka tahay oo baabuurta markay jidadka marayaan aan traffic loo baahan oo qof walba uu ilaalinayo sharcigu ilaalinayo oo booliis meel walba taagnaan loo baahan oo qof walba oo shacab ah uu ilaalinayo amniga oo kii xun uu soo qabanayo uu leeyahay hebel hebel waa qof xun ummadda laga qabto maxaa yeelay hadduu qofkaasi fakado waxa laga yaabaa adiga inuu kugu soo noqdo ku dhibaateeyo macnaheedu sharcigu waa wax ummadda oo dhan ay leeyihiin cid gaar ma laha waa dhab cid waxaa jirta enforce garaysa laakiin sharciga in la wada ilaaliyo booliis kaliya uma yaallo dowladda maamulkeeda uma yaallo shacab weynaha Soomaaliyeed dhan ayuu u yaalaa shacabku waxa laga rabaa doorasho aan dhameeyo waa mahadsantihiin waa mahadsantahay maama waa mahadsantahay doorashadu inay tahay waxa ummaddu iyo dowladnimada isku haya inay tahay doorasho inay tahay shacabku inay yihiin sovereign qaranimadu inay shacabku yihiin oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn qof alla qofkii qaangaara shacabku waxa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale haddii shacabku aysan qayb ka ahayn inay dhaqaalaha bixiyaan dhaqaalaha xagee ka imaan jidadkeenu waa burbursanaanayaan magaaladu nolol ma jirayso nolol ma lahaanayso iskuulo ma jirayaan biyo nadiif lama cabaayo gobollada lama dhisaayo ciidanka iyo amniga saas yay ahaanayaan mushaahar yar baan siinaynaa ciidanka guryo u dhisi mayno soo ma garan marka waxaasoo dhan waxaa cover gareeya muwaadin kasta oo yidhaahda qaybteedan ka qaadanaya maxaa yeelay dowladnimada anaa iska leh maxamed cabdullaahi ma laha maxamed cabdullaahi waa maamule xukuumaddu waa maamul maantay joogaan biri tegayaan laakiin buildingkan tiyaatarka ah aduu kuu hari haddaadan dhaqaalo bixinna lama dhisi karo isbartiibada haddaadan dhaqaalo gelin lama dhisi karo dadkii shalay noo dhisay waxay ka keeneen dhaqaalahaasi shacabkooday ka soo aruuriyeen waxay yidhaahdeen shacabka adduunka jooga oo noo baahan oo masaakiinta ah yaa waay annagaa ugu dhacnay ishaaradii waxay yidhahdeen Soomaali weey ogaada shacabkooda iyo shacabkeenna waa isleeyihiin haddaad idinku bixisaan canshuurihii qof walba laga rabay gabadha shaaha karisa islaanta yaanyada suuq ku haysata iyo kambanida waaweyn oo telecommunicationka haya iyo baabuureyda iyo shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha shacabka biyahaasan cabbeeno waa in canshuur laga bixiyo qofka markuu gurigiisa ka soo baxo wuxuu u shaqeeyaa dawladda maxaa yeelay baabuur buu soo qaadan lacagtuu bixiyo dawladdu waxbay ku leedahay haddii uu xafiis yimaado shaqo yimaado lacagta uu ku shaqeynayo dawladdu waxbay ku leedahay makhaayad hadduu tago uu raashin ka cunaayo canshuur baa laga goon dawladdu waxbay ku leedahay xaflad buu aadi shaah buu cabbi wuxuu rabo ha sameeyo dawladdu waxbay ku leedahay haddii qof walba qaybtiisa uu bixiyo kaalmo dibad uma baahnin laakiin waa isxilqaan shakhsi ah oo qof walba muwaadin ah looga baahan yahay waa mas'uuliyad iyo waajibaad aad leedihiin oo aad u riixaysaan inayna siiyaan Norwegianka iyo European Unionka ay yiraahdaan hooya iyagu cirka lacagta kama keenin dadkooda ka soo aruuriyeen wixii iyaga ka badnaaday yay yiraahdeen yaad ku taakuleysaan yaa ugu tabarucdaan ogaada annagu masaakiin manihin annagu sabool manihin
laakiin waxaan fahmi laanahay dowladnimada iyo xiriirka shacabku leeyihiin aan fahmi weyn waxaa loo haystaa dowladdu wax cirka ka timid iyadaa taqaana see u soconayso haddii wax qaban weydana waa loo haystaa laakiin muwaadinku isma saarin isagu naftigiisa mas'uuliyad isma saarin ma oran dowladnimada anaa iska leh waxa ay qabanaysa anaa iska leh anaa manafacsanaya marka aan wax ku darsado sidaas darteed shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaan haddaysan canshuur bixin gacantaan horsanaynaa haddaysan canshuur bixin xaafadaheena iyo jidadkeena biyaha saasi u fadhiisanayaan haddaadan canshuur bixin iskuulla fiican lama dhisaayo haddaadan canshuur bixin tuulooyinka iyo magaalooyinka lama gaarsiin karo cisbitaallo gabdhaha Soomaaliyeed lagu umuliyo haddaadan canshuur bixin jidad lama dhisi karo haddaadan canshuur bixin ciidamadeena ma siin karno nolol wanaagsan maalin walba dagaal iyo u dhintaan maalin walba difaaca dalka u dhintaan qorrax iyo waxay taagan yihiin iyo dhaxan mushahar fiican ma qaataan waxay nagu leeyihiin inaan guryo fiican u dhisno waxay nagu leeyihiin carruurtooda inaan siino waxbarasho wanaagsan waxay nagu leeyihiin inaan caafimaad siino waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa jeebkeenna ka imaanaysaa ma aha waxaan soo barinay ma aha intaas adduunku ku kala hormaray dowladda waxaa laga rabaa marka wixii aad keenteen dhaqaalihii canshuurtii inay idin maamushaan laga rabaa waxaa laga rabaa dowladdu inay cadaalad keentaa la rabaa haddii cadaalad la waayo dagaal sokeeyaa imaan haddii cadaalad la waayo faqrigu waa hooygaaga maxaa yeelay qof xun aan mutaysnayn yaa meel sare la geen markaasuu wuxuu ku cayaari karo ku cayaari saas darteed dowladdu waxaa laga rabaa in ay cadaalad iyo sharcigu ay ka shaqayso inuu noqdo kii sarreeyey inuu noqdo dowladdu waxaa laga rabaa wacyigelin xoog leh inay samayso oo dadku ay educate garayso ay wax barto ay wacyigeeda kor ugu qaado maalin walbaba laga hadlo wadaniyadu waxay tahay dal jaceelku wuxuu yahay in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shakhsi u leeyahay haddii aad waxaad leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ay dhibaato ku jiraan waxba ma haysid faqri baa tahay laakiin haddaad guri yar iska leedahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan guri ay saasoo kale wada leeyihiin oo dadku aysan baahi qabin oo nolol wada siman ama nolol fiican leeyihiin carruurtaada iskuul ku dhigtaan caafimaad aad haysato waxaa tahay hodan qani ayaa tahay waxaa kale dowladda laga rabaa inay sharafkii iyo sumcaddii dowladnimo iyo dadnimo iyo ummadeed inay soo celiso yaa laga rabaa dowladda oo ah in shacabkeedu horta ay taageerto dowladdeeda ciidamadeedu ay ahaadaan ciidamo wanaagsan adduunka markaasaa lagaa karaameynaya oo lagaa xurmeynaya oo lagaa sharfaya adduunka haddaad rabta in laga sharfo waa inay halkan ka bilaabato waa inaan amniga ka wada shaqeyno qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay nafgooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nalooga soo diray loo soo diray nolosha inay ku diidaan ma aha dowladda kaliya waxay la dagaalayaan shacabka Soomaaliyeed waan idinkaga mahad celinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba Soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow Soomaali ay yihiin aysan ahayn cadow shakhsi ku aadan kaliya ay yihiin cadow hooyo Soomaaliyeed aan u naxayn oo dilaya wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh oo dalkan difaaci lahaa dilaya askari dalkiisa difaacanaya dilaya hantidii ummadda ay lahayd burburinaya oo aanan waxba u naxaynin inay yihiin inaad ogaateen oo haddaan ognahay oo qof walba oo Soomaali ah uu qaybtiisa uga jiro inuu la dagaalamo waad ku mahadsantihiin waana ka guuleysanaynaa insha Allah dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano waana jabeen waana dhibaataysan yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo hadeeyo kuwooda roon
kuwooda xun oo ajnabiga ku dhex jira ilaahay inuu ummadda ka qabto yaan ilaahay ka baryaynaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa halganka dowladnimo waa socdaa halganka isbeddel waa socdaa annaga ku nimid isbeddel dhab ah isbeddelkiina waa socdaa waad aragtaan waxyaabaha aan qabannay waad aragtaan horumarka la gaaray laakiin weli fara kama qodna hawl badan baa noo harsan waxaan rajaynayaa halgankaas iyo isbeddelkaas joogtada ah oo horu socodka ah sidaad uga jawaabteen inaad uga jawaabtaan oo aan horumarinno mustaqbalka carruurteenna aan horumarinno wadajirkeenna aan xoojinno midnimo dhab ah aan keenno ummadda soomaaliyeed sharafkeedii sumcaddeedii inaan soo celinno ciidamo xoog leh oo difaaci kara maxaan ku rahdaa ummadda soomaaliyeed aan helno annagu dhexdeena nabad aan ku wada noolaanno dowladaha dariskana aan nabad ku wada noolaanno khayraadkeenna aan u tagno oo aan maxaan ku idhahdaa ummadda soomaaliyeed aan hubo haddii visionkaas iyo aragtidaas dheer aan wada leenahay aan ku soconno dalkan inuu noqon doono dal qani ah loo shaqo yimaado dadkeena dibadaha ku jooga oo dhibaataysan ay ku soo noqon karaan qof walba oo dhalinyaraha uu shaqo ka heli karo carruurteena mustaqbal ay lahaan karaan tacliinta oo muhiim ah iyada naftigeeda aan xoojin doonno waxaad ogtihiin hadda aan tilmaamee in aan soo celinay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd ayaan dhoweyd maxaan ku rahdaa maxaa la yidhaahdaa ayaan dhoweyd hadal yar oo iga dhaco 65 baan idhi xaaladdan ku jiraa iska ahayd laakiin 65,000 oo arday ah maanta inay noo dhigtaan iskuullo lacag la'aan ay noo dhigtaan qorshaheenna uu yahay ilaa milyan inaan gaarsiino hadduu ilaahay yidhaahdo oo fursaddaas la helo iskuulladii inaan dib u soo celinay oo aan dib u dhiseenno inaan sameynno isbeddelada aan sameynay ay tahay dhaqaalaha aad ogtihiin aysan ahayn inaan hadda ku soo celceliyo isbeddelada aan sameynay ay tahay isbeddellada amniga ah oo aan dib u habeennay ciidamadeenna isbeddelada aan sameynay ay tahay isbeddello bulsho iyo wacyigelin shacabkeenna oo aan isku xirayno shacabka iyo dowladdooda aan isku xirayno insha allah intaas in ka badanna waa gaaraynaa hadduu eebba yidhaahdo haddaan wada jirno oo aan wada shaqaynno oo garbaha isqabsanno iyo gacmaha isqabsanno waana guulaysanaynaa ummaddeenna waa guulaysanaysaa dalkeenna waa guulaysanayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu okay wax yar baa inoo hadhay aad iyo aad baa u mahadsantay hala fadhiisto madaxweynaha jamhuuriyadda runtii wuu mahad celiyey dad badan oo kala duwan buu u mahad celiyey mudane madaxweyne annakuna waxa adaanu ku mahad celinaynaa hoggaankaaga wanaagsan ee nagu hagay sidaad sheegtay horumarkaa ballaaran ee dalka ka socda iyo isxilqaan oo adiga maskaxdaadii ahayd in lagu dhiso hay-adaha dowladda waxaad tidhi halkan siyaasad maaha laakiin dareenka shacabka cid celin karta ma leh wixii wanaagsan way taageerayaan shacabka soomaaliyeed marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin madaxweynaha jamhuuriyaddu runtii dowlad waxaa lagu yaqaanaa markay shaqo ay dad u dirto waxay noqonayaan dad wanaagsan oo dadaal dheeriya sameeyey iyo dad dhexe iyo dad gaabiyey haddaan kan wanaagsan la abaal marin oo lagu ammaanin dadaalka uu sameeyey dowladdaas markaa shaqo fiican ma qabanayso markaa madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey inkastuu ka mahad celiyey si ballaaran dadkii ka qayb qaatay aragtidiisii isxilqaan inuu dadkii hormuudka u ahaa ee dadaal dheeriya muujiyey habeen iyo maalin hoggaanka ahaa inuu maanta shahaado sharaf siiyo cabdi baaruud baan ka codsanaya qofka ugu horreeya ee madaxweynuhu shahaado sharafka siinayo inuu noo sheego soo dhow cabdi maxamuud baaruud soo dhow okay waxaa ku qoran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf cabdi baaruud oo ku mutaystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka
madaxweynuhu wuxuu kugu dhiiri gelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhawow cabdi baaruud hambalyo cabdi baaruud qofka labaad aan u yeerayo waxaa weeye markii la bilaabay barnaamijka isxilqaan tiyaatarka iyo madxafka iyo maktabadda waxaa loo soo xulay inay hormuud ka noqoto hooyo Soomaaliyeed shaqaale ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan agaasimaha arrimaha bulshada subax walba ilaa fiidkii waxay dhex taagneyd boorkii iyo bacaadkii iyo rafaadkii iyo qashinkii halkan laga gurayay waxayna maanta runtii guranaysaa miraheeda ayadoo halkan abaalmarin ku gudoomi doonta Maryan Aadan Amiin soo dhawow Maryan Isxilqaan waxaa ku qoran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf Maryan maahateedii wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf Maryan Aadan Amiin oo ku mutaysatay kaalintii ay ka qaadatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiiri gelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhawow hambalyo Maryan Aadan Amiin waxaan rabaa inaan ku xijiyo Maryan intii ay barnaamijkan waday waxaa ku mataanaysnaa agaasimo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii aan ognahay in shaqaalaha Soomaaliyeed ay hormuud ka ahaayeen barnaamijka isxilqaan xoogoodan ay geliyeen waxaan rabaa inaan u yeero Ismaaciil Macallin Cabdullaahi mahadsanidin muusiga fiicana ku soo dhaweynaysaan waxaan rajaynaynaa markii mudanaha la guddoonsiyo shahaadada inaad sacab fiican ugu dhufataan madaxweynaha shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf mudane Ismaaciil Macallin Cabdullaahi oo ku mutaystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiiri gelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhawow hambalyo Ismaaciil wuxuu dal ku hormaraa ama dib ugu dhismaa waa dadaal isxilqaanka iyo iska ood isku dirtee bulshay dubaaqaada geli waxaan rabaa qofka ugu dambeeya inta aan u gelin saddex hay'adood oo kale abaalmarin la siin doono inaan u yeero abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure oo ah Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maarayihii hore tiyaatarka Cismaan Cabdullaahi Guure wuxuu u soo taagnaa tiyaatarka oo burbursan waxaa xilka agaasimaha tiyaatarka maarayaha tiyaatarka loo magacaabay isagoo oo burbursan oo qaawan waxaana isagoo dhaxmarayuu kaga tagay shaqada wuxuuna ku mutaystay runtii dadaalkii uu ku bixiyey inuu tiyaatarkan cagiisa ku istaago Master Guure xataa markuu ka tagay tiyaatarka wali dadaalkii uu waday shahaado sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf mudane Cismaan Cabdullaahi Guure oo ku mutaystay kaalintii uu ka qaatay hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka iyo maktabadda qaranka madaxweynuhu wuxuu kugu dhiiri gelinayaa sii xoojinta waxqabadkaaga iyo dareenkaaga wanaagsan soo dhawow abwaan Guure hambalyo sacab ku sii dhaweeya
tiyaatarkan runtii waxaa lagu dhisay xoolaha iyo dhaqaalaha ma aha dhididka keliya shaqaalaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee waxaa lagu dhisay hantida ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabnaa halkan inuu madaxweynaha ka guddoonsiiyo abaalmarin rugta ganacsiga Soomaaliyeed mahadsanidin ujeedo shahada sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu guddoonsiiyay shahada sharaf rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan oo ay ku mutaysteen kaalintii ay ka qaateen hirgelinta mashaariicda lagu dhisay isxilqaan gaar ahaan tiyaatarka madxafka iyo maktabadda qaranka iyo meelaha kale ee ay lacagta ku bixiyeen soo dhow mudan mahad ballaaran aan u jeedinaynaa rugta ganacsiga runtii wixii lagu dhisay ma aha tiyaatarka oo kaliya barnaamijka isxilqaan oo dhan ayay ka qayb qaateen inay kaalin mugla ka geystaan dhaqaale badanna ku bixiyaan waxaa xigi doona wakaaladda dhismaha qaranka oo uu maareeyo ka yahay Field Marshal Bashiir Maxamed Jaamac Keenaan haddii uu joogo hadduusan jooginna waxaa jooga la maareeyaha wakaaladda جرال ما هذا جوجا لكن بشير وحاو قدومه يا بشير كعان ساحركي سودو وجدوا شهادة شرف madaxweynaha jamhuuriyaddu markuu arkay burburka dalkeena waxa la dhisay hay'ad la dhaho wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo madax ka yahay nin aad u loo yaqaan oo activista Bashiir Goobe marka maanta uu maqan yahay waxa loogu dhiibay Bashiir Kacaan shahada sharaftaas hay'adda la siiyay qaba salaanta وختامه مسك waxaa jira shaqaale aad u fara badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ee dawladda oo ka qayb qaatay dhismaha meelaha lagu dhisay isxilqaanka ee tiyaatarka madxafka iyo maktabadda iyo meelo kale maadaama aan shakhsi u abaalmarin karin waxay guddiga garowsadeen in shahaado sharaf uu u qaado guddiga shaqaalaha rayidka fadlan soo dhawaad mahadsanidin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu guddoonsiiyay shahada sharaf guddiga shaqaalaha rayidka ee dawladda oo ku qaadaya magaca shaqaalaweynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay shaqada isxilqaan doorkii ay ku lahaayeen soo dhow mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ku soo dhaweynayaa xiriiriyaha barnaamijka si uu noogu sheego wixii noo hadhay aad iyo aad aad mahadsantihiin ka soo qaybgalka barnaamijkan aan ugu damaashaadayna 1 Luulyo waxaan uga mahad celinaynaa cid walba oo ka soo qayb gashay waxaanan idinka codsanayaa intuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka baxay mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inaad sidiina u fadhidaan waxaan kaloo u mahad celinayaa hay'adaha amniga oo si guud uga qayb qaatay sugidda ammaanka hambalyo sanad guurada 6aad ee 1 Luulyo waxaan kala u mahad celinayaa kooxaha fanka oo guud ahaan ka qayb qaatay damaashaadkii maanta iyo wacyigelintii bulshada waxaan idin leeyahay mar kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed barnaamijkeennii noo soo bilowday maanta barqadii intaasuu nooga eg yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh